assalaamu calaykum. wax ka bedel noloshaada si aad u gaarto guulo la taaban karo. afkaada waa hal abuurka noloshaada, ma ahan qalab aad u isticmaalayso inaad qiil ugu raadiso guuldarrada. guulaystayaasha mas-uuliyad ballaaran ayay iska saareen si ay u gaaraan natiijooyin iyo waxa ay ku haminayaan. waqti yar ku lumi hadalka, waqti badan ku bixi kamir dhalinta hadafkaada ama ujeedkaada. u fakir sidii jambiyoonkii, u hadal sidii jambiyoonkii, ka kax hurdada, boorka iska jaf, caado ka dhigo maalin kasta in aad wax un qabato. iska daa marmarsiyada, iska daa ma yeeli karada. guulaystayaasha isbedella ayay suubiyeen sidii ay usii horumari lahaayeen noloshooda. niyad jabka waa dilaaga riyada. dhibaatada ma ahan macalinkaada, tababarahaada ama waalidkaada, waa adiga saad iska dhigta walaal. go-aan waad qaadan kartaa maanta. qaab noocee ah ayaad rabtaa maanta inaad u noolaato. guulaystayaasha iskamaysan guulaysan un, way ordeen, way kufeen, way kaceen, xanuun ayay dareemeen, caqabada ayaa lasoo gudboonaaday ilaa ay kasoo gaaraan guusha waxay xagga kasii jirtaa xanuunka. caqabada ayaa ka sokeeyo. waa inaad u adkaystaa dhibaatooyinka haddii aad rabtid inaad guulaysato. subax kasta markaa soo kacda isweydii su-aalahan: maxaan ka damacsanahay nolosheeda? qaab nooceeh ayaan rabaa in maalinteeda u ekaato? tani waxay ku sahlaysaa hadafkaada nolosha inaad gaarto. guusha waa dooq, waa go-aan aad adigu la imaan karto. dad badan ayaa ku haminaya maalin walba sidii ay u guulaysan lahaayeen. way dadaalaan, juhdi badan ayay geliyaan, laakiin waxaa muhiima in ficilkaas uu dhabkaa yahay walaal. waad xanuunsanaysaa, waad daalaysaa si aad u hesho riyooyinka aad ku haminayso waayo badan. mar walba oo aad dareento waxa aad qabanayso in aad ku faraxsaneen, waa wadada keliya ee kuu sahlayso in aad hesho waxa aad ku fiican tahay ood ka helayso qanaaco iyo badqab nafeed. noloshaada waa muhiim, qiimo ayaad leedahay. dad badan ayaa waxay ku haminayaan sida ay ku heli lahaayeen midabkaada. dadka qaar ayaa midabka madowga raadinayo halka kuwa kale ay casaanka raadinayaan. dad badan ayaa raadinayo sidii ay ku heli lahaayeen hab dhaqanka noloshaada. ha isliidin walaal, muhiim ayaa tahay. ku dheh maalin kasta nafsadaada: waan samayn karaa, wax waan qabsan karaa, diyaar baan u ahay in aan wax ka bedelo nolosheyda. subax walba waan soo kacayaa sidii aan ooga dhiidhin lahaa shakhsiyadda aan rabo in aan noqdo. waan raadinayaa ilaa gunta hoosteeda, marraba ma niyadjabaayo, ka quusan maayo guusha. waxaa lagaaga baahan yahay walaal in aad ku qanacdo markii ay marxalad kula soo gudboonaato. cabsida, mugdiga iyo kalsooni darada mid kastoo inaga mida haysato waa in aan u wajahnaa si dhaba, waayo waxay noo diyaarinayaan gaaridda guula la taaban karo. si aad guusha u gaarto, isku day shuruudaha ah in waxa aad suubinayso aad jeceshahay ood galgacayl u qabto. waa inaad waqti iyo juhdi badan gelisaa ka dhabeynta arrintaas. sidoo kale waa inaad la timaadaa akhlaaq iyo anshax wanaagsan. guusha qof walbo ayaa heli kara oo rajaynayo inuu rumeeyo riyooyinkiisa. dadka guusha jecel waxay mar walba diyaar u yihiin sidii ay ku heli lahaayeen fursado. markay fursadda timaatana way ka faa'iidaystaan. ninka caanka oo la yidhaahdo Thomas Edison oo ah hal abuur Amerikaan ayaa yidhi: aniga ma guuldaraysanin, laakiin waxaan ogaaday 10,000 oo waddo oo guusha aanan lagu gaaraynin. isku daya badan ood kuu suurtagelin waayay inaad hesho waxaad rajaynaysay, micnaheedu maahan inaad guuldaraysatay, laakiinse waxay ku sahlaysaa in aad hesho waddadii guusha. shay walba qurux ayuu leeyahay, laakiin qof kasta ma arki karo quruxdaas. isku day walaal dhinaca wanaagsan inaad wax ka fiiriso. qalbi qurxoon mar kasta wax wanaagsan ayuu arkaa. mahadsanidin.